Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaal kulanti wanaagsan. Ku soo dhawaada fursad maanta aan idin hayo. Ma doonaysaa inaad hesho internet free ah sida anigaba hadda aan u haysto internet free ah? Kaliya waxaa u baahan tahay inaad buuxiso shuruudahan soo socda. Si aad u hesho internet free ah, fadlan ila soco. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad page-ka soo booqato, fadlan subscribe saaro. Gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka u horeeya oo caawa fursaddan hela. Ha iska ilaawin in aad lacag ka bixiso haddii aad ka hesho. Wixii warbixin ahne ama uu kuu bixi waayo, kuu shaqay waayo, ama uu kuu shaqeeyo, qaybta commentiga hoos igu reeb. Mahadsanid. Inta aan guda gelin barnaamijka, aan ku xaqiijiyo internetkayga waxa lacag ma ku jirtaa. Halkaas ayaan taabanayaa. Lafta ay kugu jirtaa waa hormuud. Sidaas ayaan leeyahay. Kabacdina waxaan taaban doonaa xidig 450. Wuu raadinayaa soo ujeedid. Okay. Xidig 450. Maxaa u koreeyo itus haraagayga. Waxaan taaban doonaa haraagayga. Waa kaasaa. Maxuu i soo qoray? Waan ka xunnahay hadda wax bundle balance ah kuguma jirto. Waxay ka dhigan tahay wax lacag kuguma jirto. Okay, internetku ma ii shaqeynayaa. Waxaan galayaa YouTube-ka. Wuu raadinayaa. Yes, wuu ii shaqeeyay. Hibaaq gubad bal aan break dhaho 2 minutes. asxaabta qaaliga dhammaantiin aad baan idin salaameynaa asxaabta Waa kaa qaadnay hibaaq gubeeday. Daawada ku soo dhawow qaabka aad ku heli karto internet free ah. Kaliya waxaa u baahan tahay inaad ka soo baxdo shuruudahan. Ugu horeyn, qodobka koobaad waa in telefoonka aad haysatay oo yahay 4G. Qodobka koobaad telefoonka aad haysato waa inuu ahaadaa 4G. Qodobka labaad waa in telefoonkaaga ay ku jirtaa saddexda shirkadood ee internetka bixiso mid ka mid ah, sida Hormuud Telecom, Somtel Telecom, iyo Somnet Telecom. Saddexaas mid ka mid ah haddii aad haysato, waa heli kartaa internet free ah. Haddaba, si aad u hesho internet free ah, ugu horeyn waa inaad la soo degtaa app-kan. Waa inaad la soo degtaa app-kan loo yaqaano Antonio Ton. App-ka loo yaqaano Antonio Ton waa ka hadda aan taabanayo. Waa midkaas hadda aniga aan taabanayo. Markii aad kaas la soo degto, kaliya waxaa u baahanaysaa waxaad ka helaysaa meelaha telefoonkaaga waxa laga soo tago sida App Store ama Play Store. Inta waa ka helaysaa telefoonkaaga waa inuu Android ah lahaadaa iPhone oo ku isticmaali kartaa. Haddaba, si aad u isticmaasho oo ula soo degto, waxaad tagaysaa Play Store-ka. Waxaa ku qoraysaa Anton. Waa kaasaa wuu soo baxay. Anthony Tun aa ku qoran. Waa kaasaa. Adiga waxaa u baahan tahay inaad dhahdo install, balse aniga wuu igugu jiraa. Oo waa kaasaa hadda wuxuu igaga baahan yahay kaliya open. Haddaba markii aad la soo degto barnaamijkaasi oo telefoonkaada ku shumo, waa la soo baxaysaa waana furaysaa. Ugu horeyn waxaad taabanaysaa barta ugu koreyso geeska ah saddexda dhibcood.
waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay VPN setting. Waxaad furaysaa midka koowaad, lambarkaasna wuxuu ku ahaan doonaa 1500. Waxaa ku xijinaysaa midka labaad oo route all on off ah, on ayaa ka dhigaysaa. Midka saddexaad ee ku muuqdo oo forwarding ah waa iska xiraysaa. Google DNS isagana waa furanaysaa, halka custom DN iska xirayso. Kabacdina save ayaa leedahay. Si optionka kale u save karayso, aniga hadda igu xiran yahay mujida, waa inaan iska xiraa marka hore. Iga xir. Okay, hadda ayuu siinayaa. Waa kaasaa meesha maxaa ku qoran oo hadda aan taabanaynin saddexda dhibcood geeskeeda stereo setting. Waa furaysaa. Meesha ugu horeyso on ayaa ka dhigaysaa. Meesha ay ku qoran tahay connection protocol-ne waxaa ku taabanaysaa HTTP ayaa taabanaysaa. Lambarka 8080 ayuu ku ahaanayaa. Midda ku xigtana waa iska xiraysaa. Midda ku sii xigta ayaa furanaysaa. Ay ku qoran tahay edit custom TCP HTTP headers ayaa taabanaysaa. Meeshaas u korayso hadda aniga waxaa igu qoran hormuudtelecom.com. Meesha ku xigto hadda get ayaan ka qaadanayaa. Normal sideeda ayaan ku daynayaa. Laakiin waxaa imaanayaa shanta hoose oo tig ayaan saarayaa dhammaantood. Markaan saaray waxaan leeyahay save. Waxaa ku laabanaysaa qaybta daatada. Ugu horreyn daatada waa inay kuu furnaataa. Markay kuu furan tahay, intaas kadib maxaa u baahan tahay? Kaliya save ayaa leedahay. Markaa save tidhaahdane waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay connect. Kabacdi wuu kuu soo qabanayaa. Yes, ani waa kaasaa hore igu soo qabtay. Halkan waxaan dhihi doonaa leeta iska dheh. Waa kaasaa ugu xiran yahay. Inuu kugu xiran yahay waxaa ku cadeynayo bartaas geeska ah maxaa ka muuqato calaamadii application-ka ay ku xigto fure. Furaha haddii uu kuu saaran yahay wuu kuu shaqaynayaa. Almuhiim waa inuu furahaas kuu soo qabtaa. Ha iska qaldin oo buuxinta si fiican u fiirso. Waa ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan. Fadlan waxaan si ixtiraam sharaf ay ku dheehan tahay kaaga codsanayaa in aad subscribe saarto, like saarto, warbixinna igu soo celiso oo aad comment ii soo qorto.